adeegyada aad ka helayso ee diyaarka kugu ah Raysan ayaa waxaa ka mid ah dhanka cuntooyinka, cunto Itoobiyaanka, cunto Jabuutiyaanka, cunto Kenyaanka, cunto Faransiiska, cunto Yamaniga iyo weliba cunto wadanida, iyadoo intaasina ku dheer yihiin cuntooyinka fudud iyo samaynta cayn kasta iyo cadad kasta oo aad rabto oo keega, hadday noqoto kuwa dhalashooyinka, kuwa aroosyada iyo weliba kuwa casuumadaha gaarka ah. sidoo kale cabitaanada ayaad ka helaysaa kuleyl iyo qabow nooc kasta oo dookhaagu yahay oo degdegsiima ku ladhan tahay. daawadee ballanteenu waa hamoogaan Raysan Cafe, waa raasamaalka noloshe. haddana ku tilmaamo goobta ay ku taalo meherada cuntooyinka ee Raysan, waxay ku taallaa xaafadda Jigjigeer, gaar ahaan dhinaca waqooyi ee Hotel Mansoor ama dhinaca koonfureed ee istaankii hore ee basaska Jigjigeer. wixii faahfaahinaya intaasi dheerna kala xidhiidh lambarada kaaga muuqda shaashada hortaada. waan kugu soo dhaweynaya barnaamijka tartanka hibada Hargeysa. soo dhawow. aad iyo aad baad mahadsantahay walaal. bismillaahir rahmaanir rahiim. waqtigoos ka gaabanowgii haddaan iska guda galo sugaantayda gabay baan kaga qayb galayaa sugaanta. gabayga waxaa la yiraahdaa qabiyaal oo ah halkii qabtu taalay. qabtana hadeedaan garanayn waxaa la yiraahdaa bariyi hore anagu inta badan miyigan joogi jirayo gogoridan ku daba jiray qabta anu waxay ahaan jirtay wax yar oo inta isku xidhxidhno looxaana isku xidhno deetana wax aanu ku xidhi jirnay inta badan China aad ku aragtaan iyagoo figure inta saa wax u xidhan ay ku fakanayso sidaas si leeg baan sameey jirnay marka inta gogoridu gasho wax u dhigno markay gashay ku istaagi jirtay deetana way la degi jirtay marka taa aynu ka hadlayno laftirkeedu waxa weeyaan waa qabyaaladda. gabayga fasir doona in badan waayo waqtigoos ka yar awgii gabaygan haddii aan bilaabo waxa uu leeyahay qaada gabay baryahan qarayaro waa anigaan qorine qalinkiiba waa taandhigeen qariyey buugiye qof abwaana baan ahoo afkaan quusan karahayne qalqallooca waayaha mar baan qiira tiriyaaye qisadii timaadana qormaan qeydka ku xidhaaye caawana qareen baan ahee qiime hadalkaygan qarnigani adduunkii xumaa qarada weynaaye qaybsame dadkii iyo geyiga qurusba waa meele nin waliba qabiil buu tirsaday qarankii Soomaale qursi bay ka doorteen hankii qaalibka ahaaye qurun baa haleelo dalkii qoqoba maandhowe qarax baa dhex yaallo ma jiro qaabil sharafeede mid kastaba qabiil buu tirsaday mid kastaba qabiilkiisa buu qaran ku sheegaaye qaban maayo ruuxnaba habeen qolo shisheeyeede wuu qoloodaa qofkaan arkayn qaramadiisii iga daa qabiil iyo qabyaal quustay farayowe qadafiya dhibaatiyo xumaan qayla tala seega qoonsigiyo colaadiyo nafgoyn qaasadiyo leebka qumciyo rasaastaa dhacdee qiiqa kicinaya qudha aayar baxaysan lahayn aana lagu qaaday qoladii galool iyo la yidhi qansaxa reerkooda quraciyo waxaa dhalay ninkii qoyska degalkeena oo jaarnimadii qaaliga ahayd qolo ka roonaatay mar hadday qabyaaladii adduun qaayib ku ahaatay qaynuunkeeduna hirgalay oo qarana uu yeeshay waa duni qiyaamaheed dhaco qaadir bixinayo adduunkani qodkiisii lumee qamadka loo waayay dunidani qadaadka u dhacdee samahi laga qaaday dunidani hankeedii qurmee qoolka lagu jiiday dunidani qasaaraha la nool een isqabanaynin qoloqoloni sheegtiya nimaan qowlba garanaynin iyo qaafil aan damiir lahayn qaarka lagu hooyay kun qabiilna loo kala baxshay ee qocondho loo daashay waa lagu yaqaanaa qaskiyo inay qaloodaane yaa qabyaalad iga suuriyo qaranka ii tiirsha haddii quud lagu helo khalqiga iniba qayb soorto haddii quud lagu helo khalqiga iniba qaar soorto nin waliba qabiilkii tirsada qarashna uu siiyo qani buu ahaan lahaa qof wali qaranka Soomaale mar hadday qabyaaladi tahay qad oo oon taha qariiran anna aan qadaad weyn noqdee kaala i qalqaali qoxoontina ahaw oo hadhow hayga daba qaylin doqoniima weeyaan qabyaal shuqulkeeda yaa qabyaaladiga tiiriyo qaranka ay tiirsha halka haddii aan dul istaago qabyaaladda ka wax ku doonayo wax ku hela ka kale qabyaaladeen wax kuma helo wada aragteeno maanta loo lanayo miiga ka jooga xoolaha ka soo carara balse laakiin hadhow talo xilka markuu helo lama yaqaano wuxuu yahayna lama yaqaano
halkaas ayaan ka hadlaya iminka nin kastoo qabyaalaysta hadduu ninka miyiga u joogay qoladiisa ah uu wax siinayo oo ficil bay noqon lahaydoo ilaa miyiga kuwa joogaa qani ahaan lahay innagaaba isku fillaan lahayn intaas ayaan uga jeedaa si kale u qaadanna nin hadduu qalluubiyo anfaco qaarna kugu siinin aqoonnina idiin dhexayn qof qaad qaaci u tumaysay qabiilnimo daraaddeed aad u qaramaysay oo qabiilnimo daraaddeed aad u qaramaysay doqoniimo weeyaan qabyaal quursi shuqulkeeda yaa qabyaaladiga suuliyo qarankay tiirsha hal qod aan ahaanee dadkana qowsan ugu sheega qayrkayna horumar bay laasimeen qoraxda guudkeeda qamarkiiyo waxay gooshayaan qayba samadaasa qoomiyada iyagoo ah bay quwad wadaageene aniguna qarkiisaan adduun qowda ku hayaaye qorshahayga waxa hoos u dhigay qolada weeyaane qarankayga waxa liiciyo qaadhshay magacayga qoladayda mooye qof kale ula qadayn waayey waa qiyaamo laygu ababiyoon qaatay manhajkeede yaa qabyaalad iga suuliyo qaranka ii tiirsha hal qod aan ahaanee dadkana qowsan ugu sheega intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa halkaasay ku joogaa gabayga waayay aad baad mahadsantahay faysal kole barnaamijkeena siin horeba usoo sheegnay waxa uu ku dheeyahay guniga gabagabadii si toose waxaynu gudageli doonaa odhaahdii guddida soo jeedintii tartanka iyo sidoo kale waxyaabihii ayna odhan karaan guddidu si toosa ayaynu la socon doonaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر وأنا مغرب marka hore waxaan salaamayaa oo u hambalyeynaya dhalintan soo qaban qaabisay tartanka hibada halabuurka ee Hargeysa waxa uu yar ma aha in tartan dad bulsho badan loo qabto oo dad badan la isugu yeedho dhibteeda leedahay hawsheeda leedahay kharashkeeda leedahay meherada ka qayb qaatay oo dhan waan salaameynaa kuwii aan ka qayb qaadanay imka laga sugaya inta marka laga imaado waxa tartamay shan halabuur iyo nin isagu hibe gaar lahaa iyo laba fanaan Cabdiqani iyo inantii kala magaceedii hadaan xasuusto magaceedii xasuus fanaanadahay Naciima labadoodaas oo tartamay fanka ku tartamayay shan halabuur oo kala Cabdiraxmaan Qarayare Cali Bashiir Deeqa Maxamed Muuse abwaankii dhamaystiriyay abwaan dhamays markaa magaciisu abwaan dhamays iyo Faysal Qoraaye shanta halabuur waxay meesha u yimaadeen guul iyo guul darro labadaba habka haddii aad wax kaa qaldamaan macnaheedu eed ma aha waxa weeyaan berrito alle wixii aad sixilaydun aad bay wanaagsan yihiin halabuuradaasi si wanaagsan bay wax u soo bandhigeen si quruxsan bay u soo bandhigeen wax meesha qaladoo badan kumaanaan arag halmaansan mooyaan walow aan u dayn doono Cabdiraxmaan Sidiiq helo dee natiijada laakiin haddii aynu sii dul marno maase dambi dhaaf xarafaaceedu deel buu ah soo abwaankeedu sheegay ka soo gudub waa sax marka insha allah biidnillahi kariim labadaba heesaana waxaan u dayn doonaa Cabdiraxmaan si uu kala saaro maasadana waxaan u dayn doonaa Cabdiraxmaan Sidiiq helo wixii aan kala garsooray helo waanu ka wadaagnay wuxuu afkiisa ka soo baxana waa go'aan aanu ka midaysannahay oo aanu ku wada soconno marka idinka waan idin dhiiri gelinaynaa allah idin barakeeyo inta aad haysaan in ka badanna haya abwaanadana hal kelmad u baan leeyahay abwaanku waa codkii bulshadiina insha allah idinka u maqan u adeega intaas ay kaga dhantahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad baa u mahadsantihiin tartamayaasha horta waxa weeye tartanku waa laba wareeg waxaan ugu talagalnay wareegga koowaad inta soo baxdaa in wareegga labaad golo kafuul ay ku kala baxaan markaa wareegga labaad wuu ka adkaan doonaa wareeggan waxa weeye inta qofku halkaas soo istaago baa guddidu mawduucu sheegi doontaa deetana mawduuca buu toobaneeye sadar deetana ka odhan doona tartamayaashu guud ahaan waxay ahaayeen 5 qof waxa ugu horeeyay Cabdiraxmaan Qarayare maansadiisuna dambi dhaaf bay ahayd sidoo inoo sheegay xaraf raaca maansadiisuna wuxuu ahaa deel marka waxa ku jira tuduc oranaya rabbow nuurkiyo iftiinka sidaynu aragno waxa ka maqan markaa xaraf raaci deelka ahaa isaga leenkaasaan u haynaa waxa ku xigay Cali Bashiir isaguna gabay tashi la yiraahdo
buu ku tartamayey. gabaygaa isagana waxaa ku jira sadar odhanaya garashada midkii lagu tuhmeen oo intaasi miisaanka ay ku fadhido hooriskoo odhanaya talada u dhiibno. markaa hooriskaasi miisaankii baa jaban. isagana waa halkaa sadar. deeqa maxamed muuse waxay akhriyeysay ku tartamaysay maansada hooyada. maansada hooyada waxaa ku jira 10 sadar oo miisaanka dhaafay ama miisaanku jaban yahay iyo 9 sadar oo xaraf raaca ay ka baxday. waxaa ku sii xigay cabdikariin oo ku tartamayay maansada dhammays. siduu isaguna inoo sheegay xaraf raaca maansadiisu waxay ahayd dha. waxaa ku jira deetana layn odhanayaa raandhiiska nololeed. waxaan malaynayaa inuu dhacda halkaa ku jirta oo u soo qaatay xaraf raaci iyana xabadda laynkaasaa ka maqan xaraf raaca. tartamaha shanaad oo ahaa qoraaye isagana layn ka mid ah waxaa gebigiisa ku jira kayrkayna horumar bay laasimeen oo miisaanka carabka uu laaxin ku jiro. guud ahaan marka la isku soo wada geeyo deeqo oo ku tartamaysay maansada hooyada marka laga reebo 4 tartamo ee kaleba maadaama min hal sadar uu miisaanku ama xaraf raacu uu maansooyinkooga ka dhinnaa waxay u soo gudbeen wareegga ugu dambeeya. waxaanay ku tartami doonaan wareegga labaad waa golo kafuul. nin waliba haysto soo adkeeyo. markaa waxaan ku wareejin doonaa cabdiraxmaan oday fanaankeena marna abwaankeena labadii qof ee fanaaniinta ahaa iyo inankii kaleba isagu wixii xogo inooga hayo. aad baan umahadsantihiin heello iyo ridwaan iyo dhammaan tartamayaasha iyo kasoo qaybgalayaasha barnaamijkan. waxaan isagana u hambalyeynayaa nimcaan oo isagu hibo gaara oo talentiya wata oon cidina la soo ag istaagin, cidina aanay halkan inta joogtaan hubo. isagu mar walba uu ka madax bannaayey. saaxiibka nimcaanna waanan ku dhiirigelinaya, waana hambalyeynaya. marka hore mandela iyo inantii kale niciima markaan eego mandela aad baan isu naqaanaa. waan ku salaamaya saaxib mandela. waana ku hambalyeynayaa noloshaada aad ku soo biirtay cusub caadiga ah iyo tii kale qaluucday labadaba. tanna waa kugu hambalyeynaya saaxib. inanta la yidhaahdo niciima iyo ninka la yidhaha mandela waxaan u hayaa 3 qodob baan u eegay. 3 qodob baan u eegay waxa weeyaan waa teembada maxaan ku dhahdaa iyo codka iyo masrax. saaxiibkii codkiisu waa wada arkiiseen waa codkiisu waa fiican yahay. xoogaa masraxaan ku yar qabtay saaxiibkay. waxaan ku dhahdaa teembadiisuna ma xumo waa sax. inanta la yidhaahdo niciimana 3duba waa u sax. kabaan hambalyeynayaa labadoodaba oo kaalinta koowaad niciima saaxiibka madeelna waa too. aad baan idin salaamaya dhammaantiin. kolley intii soo baxday intii barnaamijka tartankiisa ka soo qayb qaadatayna ka soo qayb qaadatay. horta barnaamijka intan caawa aynu nini wixii doonayeen dib u daawadaan, wixii doonayeen dib dadka u tusaan waxay kala socon doonaan baraha bulshada YouTube, Facebook, Twitter. qof walba isaga halkiisa ugu imanaya. page baan soo gelinaynaa goobo badan oo Facebook ah u imanaya, goobo badan oo YouTube-da u soo gelaya, goobo badan oo Twitter-da u soo gelaya. barnaamijku aad iyo aad idinku mahad celinaya. wejigan xiga iyo xilligan oo isugu imanayna isla hoolkani aad dood mahadsantiin. Thank you.